الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه والآليال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku guda jirnaa darsigeennii taxanaha ahaa maantana ee ku saabsanaa xuquuqda iyo islaamka. waxaan maanta uu ku saabsan yahay cashirkeennu xuquuqda shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. bini'aadamku laba un weeyaan, shaqo marka la hadal qaado, qof loo shaqaynayo iyo qof shaqaynaya. labadaadi waxay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin. shaqaduna xuquuq bay leedahay, qofka loo shaqaynayaana xuquuq buu leeyahay, qofka shaqaaliyana xuquuq buu leeyahay. haddaba waxaan ku horeysiinaynaa qofka shaqaalaha ah muxuu xuquuq leeyahay. islaamku waa diin cajiibo, waxa uu u dhigay qof waliba xuquuqdiisii. qofka shaqaalaha ah wuxuu leeyahay xuquuq ah kow, qofkaasi maadaama uu shaqo qabanayo, shaqo lagula heshiiyey, shaqadaa marka uu bixiyo dadaalkiisii iyo juhdigiisii uu dhiidkiisii uu bixiyo, sidii laga rabay uu sameeyo, inuu isna wixiisi helo, weliba in la siiyo xilligii lagula heshiiyey. hadduu maalinla yahay ama yoomiye yahu ku shaqaynayana, markuu shaqadiisaa u dhameeyana inaa la siiyo. haddii bil lagula heshiiyana in bishii la siiyo. haddii ay muddo amba kontara ay tahay 3 bilood amba muddadii loogu talagalay ama markuu hawshaa u dhameeyo ay tahay, nooca doonada heshiiskii xilligii lagula heshiiyey markuu shaqadii wixii laga doonayo fuliyo, inaa isagana wixiisi helo. haddii qofkaasi waxa uu siin waayo, wuxuu mudanayaa cadho ilaahay iyo cadaab ayuu mudanayaa. hadduu siiyana, wixiisii siiyana, ajir buu helayaa, dhibaatooyinkan uu ka badbaadaya. wuxuu nabigu noo sheegay alayhi salaam, ummadihii hore 3 nin oo safara ayaa roob baa da-ay, roobkii bay god ka galeen. godkaasi buur buu ku yaallaa. buurtii uu ku yaalay godku markuu roobkii da-ay ayaa waxaa dhacay in uu dhagax weyn baa kusoo shalwaday, godkii ay ku jireen buu yuu daboolay. telefoonna may haysan oo beryi hore ahaydoo ma jirin, si ay ula soo hadlaan oo halkaan noo soo gurmada ay dhahaan. cid ag joogta oo muxuu u gurmataay oo arkaysa ma jirto. iyagu awood ma laha, iska riixan. marka waxay yidhaaheen maxaan samaynaa? markay tashadeen waxay isku waafaqeen, war waxa awood noo noqonayo naga badbaadinaya nin waliba wixii camalee fiicnaa uu ilaahay ugu dhowaanayey uu sameeyey, bal ha baarbaaro ilaahay aan ku weydiisanay. marka 3 nin waxaa ku jira nin shaqaalihiisii mid ka mida ayaa markii uu shaqadii dhameeyey uu yoomkii siinayey ayuu saluugay. markuu saluugay buu u daadiyu iskaga tegey. de horba wuu diido oo jeebka iskagama subane, lacagtii buu isku celceliyey, waxbuu ku sameeyey, beer buu ku qoday, ari iyo lo iyo addoomi iyo buu ugu sameeyey. kadib beryo dambe ayuu ninkii soo laamay, xoolihii oo batay oo beertiisa agteeda u shaqaynaya. markaa buu ku yidhi, war hebelo wixii berigii isii waa tahay qaado buu ka yidhi, waxaaba adigaa iskale, war haygu dheeldheelin, haygu ciyaarin, isii waxa iga yara, may wallahi adigaa le. marka wuxuu siiyey beertii, shaqaalihii ka shaqaynayey, xoolihii dhex joogay, waxa oo dhan wuxuu iskuu celceliyey, uu baamishadii ugu sameeyey, ugu macaashay sida isaguba u shaqaynay. ninkaasi markuu waxaa sameeyey, ilaahu haddaan taa dar ilaahay u sameeyey, alla ka cabsi, ilaahay haddaan saa daraadda u sameeyey iyo xaaraantoon iska ilaalinaya dhididka bini aadanka iyo shaqaalaha, ilaahow musiiba naga badbaadi weye. siduu dhagaxii ka riixmay. labadii kale midba waxbuu sheegay. marka haddii qofka shaqaalaha la siiyo wixiisa, waa xuquuqda ugu horeysa ku leeyahay. weliba waxa fiican inta dhididku qofka ku yaallo uuna ka engegin inaas. maxaa yeele xadiis nabi sal slam wuxuu yidhi, acdu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraqahu, ow kama qaal. xadiis macnihiisu ahaa, qofka shaqaalaha siiya wixiisa siiya, mishaaradiisa, mushqaayadiisa, yoomkiisa siiya intuu dhididkiisa una engegin. ma haboono intaad tidhaahay qofka waa kaas igu soo noqoday waan ku siin doonaay,
beri soo laabmo haddana waan ku siin doonaa igu soo noqon meermeerkaas waa xaaraan qofka lama meermeeriyo wixiisa wixii mutaysa ay kula heshiiseen in la siiyo ayuu xaq mutaa waa xuquuqdiisa ayay ka mid tahay waana waxyaalaha nabi sal slam qofka kula dacwiyayo haddii wixiisa la siin waayo xadiis macni sal slam ku yidhi 3 yowm alqiyaamaha anaa la doodaya oo la dacwiyaya saddexdaa waxaa ka mid ahayd nin qof shaqaysiiya shaqaala wixii kula heshiiyana ka dhamaystirta oo shaqadii ninkaas uu qabtay rag iyo dumar qofkaasi ahaade deeto markuu wixii si yidhi dafiray oonan siinin marka qofkaasi keliya qofkii uu dulmay wixiisa siin waayey lama dacweeye waxaa la dacweeyay nebi maxamed sal slam yowm alqiyaama marka waxay ku tusinaysaa xuquuqda qofka shaqaalaha halka islaamku gaarsiiyey ayay ku tusinaysaa xaqa labaad uu leeyahy waxa weeyaan qofkaasi inaa wuxuu karayo un loo dhiiba bas shaqada inay noqoto shaqa uu itaal u leeyahay uu karayo uu awood u leeyahay in la siiyo loo dhiibo weeyaan haddii qofkaasi uuna karaynin oo shaqo ka culus loo dhiibo waa in lagu gargaaro ama shaqaalo kale oo gargaaro loo qabto in la yidhaha ilaa waxaa samee haddaad karin de adig ku jirta iska soco in la yidhaha amba lacag melid in la yidhaha maahine hadduu karaynin qofkaasi waa in lala qabto ama adigu aad la qabatid amba cid la qabanaysaba aad u yeeshin maxaa yeele dadku waxba isma dheero bini aadam bay waleeyihiin waxa dadku ay isku moodeen dad kale kaga fiican yihiinna amba xoog ama maal ama maamul ama muruq wuxuu doonaha aadee ilaahay agtiisa wuxuu qiimo ka leeyahay ma jirto sida loo kala alla ka cabsi badan yahay unba ilaah lagu kala dhow yahay marka qofka inuu yuuna ismoodin waad ka lacag badantahe uu kaa qiimo yar yahay uu kaa hooseeya waa xaqiir yaana la oran nabi sal slam xadiis abidar uu warinayey ayuu yihi dadkan shaqaalihii ah waa walaalihiin ilaahay baa gacmihiina hoos dhigay oo in hoos geliyey waxaad cuntaan siiya iyagana waxa dhareed xidhataan iyagana huwiya oo siiya hana ku kalifina shaqo ka culus oo ayna karayn haddaad shaqo ka culus aada u dhiibtaan waa inaad dadka ku gargaartaan ayuu yihi sal waxaa kale xuquuqda ka mid a qofkan shaqaalaha in dadnimada qofka la ilaaliyo oon dhaawac xagga jidhka ah ama xagga mooraalka ah ama xagga shaksiyadda aan loo geysan maxaa yeelay qofkan ixtiraamkiisu mudan yahay waa shaqaale oo kuu shaqeeya haa laakiin taasi ma keenayso oo xaq kuma siinayso inaad hayaamayso ood hagardaamo u geysito ood mooraalkiisa iyo naftiisa iyo dareenkiisa aada meel kaga dhexdo qofkaas waa haddii kale waxaa noqonaysaa qof dambaabe ayaad noqonaysaa ta gacanta qofka looga geysan way kasii daran tahayba nebi sal slam nin saxaabadiisa ka mid a oo abu mascuud la yidhaaho ayaa ninkii addoonka ahay u shaqaynayey ayuu ku sii jeeday oo ku mashquulsanaa u dilayay ninkii abu mascuud oo uleynaya ninkii ayaa wuxuu yihi abu mascuud baa ka warramaye waxaan maqlay buu yidhi nin qof cod rag ah oo dhabarkayga iga leh abaa mascuudow haddaad aduu ka abood roon tahay adigana ilaahay uu kaa abood roon yahay dad ka abood weyn tahay ninkaasi si adigu abood u weyn tahay adig ilaahayna kaaga sii abood badan yahay ayuu ku yidhi dib baan u eegay buu yihi waaba se nebi maxamed sal slam qofka sidaa ka lihi waa nebi maxamed sal slam marka qofku markuu qofka u dhimayo waxa shaqaalaha ah amba uu caayayo ama hagardaameynayo amba hadalo dhaawacayo u geysanayo waa inuu ogaadaa inuu ilaahay isaga uga abood weynaa isna oo lagu ciqaabi doono halto abu mascuud saxaabiga markuu hadalkaa maqlay wuxuu yihi nebi allow huwa xurun liwajhi illaah waa xor waan xoreeyey haddii maanta laga bilaabo waa xore addoon maaha waxaa cajiiban jawaabta ugu jeeda sal slam wuxuu yihi low lam tafcal haada haddaad saa samayn lahayn ood xoreyn lahayn naartaa ku leefi lahayd yooma alqiyaamaha oo ku gubi lahayd taa waxay ku tusinaysaa qofka qof shaqaalaha dhib u geysta amba hagardaamo u geysta amba dhaawac jirhka u geysta ilaahay baa subxana watacaala qiyaama isana ka goyn doona waxaa laga yaaba inaad isweydiiso war qofkan shaqaalaha la garay shaqadiisee isaga qofka loo shaqaynayahay muuna isagoo xuquuq lahayn nacam wuu leeyahay xuquuqda waxaa ka mid a qofka loo shaqaynayaa wuxuu kula heshiiyey shaqaalaha sidiisii waa inay u sameeyaan marka qofka shaqaalaha ah
isna waxaa xuquuq lagu leeyahay oo qofka shaqada le ee shaqaysiinaya wuxuu isna xuquuq leeyahay wixii qofkan shaqaalaha kula heshiiyey inaa sidii loo fuliyo waxaa samee buu yidhi waxaa ii samee sidiis u samee waktigii uu ku yidhi ii shaqeena inaad u shaqaysi weliba dadka qaarkood waxay sameeyaan marka hawl loo dhiibo qofkii uu ka maqan yahay shaqada lahaa suu doonu sameeyaa meelaha waa la iska fadhiisan meelaha shaa laga cadbi waa laga sheekayn markuu soo dhow yahay amba cid ku soo baxdo ayaa hobiye hidee la odhanoo la dhaqdhaqaaqay sidii qof weligiiba saa u shaqaynaya ayuu taasina markaa waa qof laba wajiilaa waa xaaraan marka qofkan shaqada iska leh wuxuu kugula heshiiyey inaad runta u sheegto tira waxaa baan samaynayaa sidaaba waxaasi yihiin been ha u sheeginoo waxayna aan hawshiisa ay tahay si kale ha ugu sheegin haddii kale qof beenaalaa noqonaysa qof khaa'imanaa noqonaysa qofka shaqaalihii waa inuu qof aamina noqdo hadduu ammaano yeelan waayo wixii loo dhiibtay ama dukaankii loo dhiibtay ama shaqadii loo dhiibtay ama shirkaddii loo dhiibtay hadduu siduu doono u galo uu iska isticmaalo wixii amba lacagihii loo dhiibtay amba alaabtii loo dhiibtay ama baabuurkii loo dhiibay uu meeshuu doono ku maro baabuurkii uu soo qaaday baabuurkaa shofeer baad ka tahay ama darawal baad ka tahay waxaa ku qabaa lagu yidhi danaha gaarkaa kusoo fushataa saanskii baa kaa dhammaaday waxaad leedahay saanskii baa dhammaaday waa danaha gaarka waxaad kusoo ismaashay taasina xaaraan bay noqonaysaa waxaa kaloo ka mid ah qofkan aad u shaqaynayso wuxuu lahaa biro aad ugu shaqaynayso telefoon buu lahaa telefoonkaasi maanta oo dhan baad xaafadda la sheekayn asxaabta la sheekayn wuxuuna kuu ogolayn baad ayaad ku hadli hadhow talo waxaa kusoo baxaya faktuur iyo lacag loogu soo saaraya isaguna wuxuu moodayaa inaad adigu muxuu ahaa shaqada aad ku gudanayso waxyaalaha qaldan ayay ku jirtaa ee dadkeenu ay ku shaqeeyaan hantidiisa inaad ilaaliso oo dhowrtid ayaa laga maarmaana ood ku tarkifalin hadduu qofku sidaa yeelana uu iska ilaaliyo xaaraanta qofka u shaqaynaya wixiisana ilaahayna uu ilaalinaya bal u fiirso cumar bin khadaab radi allahu canhu ayaa maalin isagoo socda dhinaca baadiyaha socda ayaa nin dhalinyaro wuxuu arkay addoon oo ari eegay wuxuu ku yidhi laxiga iibi bicnii shaatan wuxuu yidhi anu melih wuxuu yidhi waraaba yaa cuna ka dhahaa dugaag baa cuna ka dhe wuxuu yidhi dee muxuu ahaa ninki wuxuu nin aamina ayuu ahaa dee wuxuu u sheegay cumar inayna dhici karin taasi oo un been sheegaynin oo ilaahay ku qabsanayo cumar uu ooyey uu ku tijaabinayo uu eegayey kadib sayidina cumar uu xoreeyey ninkii isaga gacantiisa ku iibiyey lacag siiyey ninkii lahaa addoonka u ahaa uu xoreeyey marka wuxuu ku mutaysay waa runtaasi ayuu ku mutaysay marka qofka shaqaalaha waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo shaqada inuu ilaaliyo waxaan kusoo koobaynaa inta uu karayo qofkani waa inuu shaqeeyo hadduu muxuu ahaa hakrado aqoontiisa amba awoodiisa amba inta itaalkiisa hakrado qofkaa wuxuu noqonaya qof dambaabay oo xaqoodii lagu lahaa ka soo bixiyo noqonaya intaan kusoo koobaynaa wasala allahu calaa sayidina maxamed